habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageysanaysa waa mar kale iyo barnaamijkeeni wararka iyo caawa qodobadan idinku hayana waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda dalkii Soomaaliland aqoonsaday ee Israel iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay oo maanta ka soo degay garoonka Cigaal International Airport ee Hargeysa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Israel oo ay kamid ahaayeen saraakiil sarsare oo ciidamada iyo madaxda dalka Israel kamid ah oo maanta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay dalka ayaa ka soo degay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Israel ayaa waxay martiqaad rasmi ah oo ujeedada xogtiisa la qariyay ka heleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wafdigan wasiirka arrimaha dibadda dalka Israel hogaaminayay ee maanta ka soo degay Hargeysa ayaa waxay ku hubaysnaayeen oo ilaalinayay diyaaradaha dagaalka ee hadda dunida ugu casrisan ee loo yaqaan F-35 kuwaas oo la arkayay iyagoo hawada Soomaaliland ku dul wareegaya xidhayna xuduudaha cirka ee diyaaraduhu ka soo gudbaan waftigan oo sidan horeba idinku sheegay la qariyay waxa ay daaranayd ujeedada xogta safarkoodan ay ku yimaadeen jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa la filayaa inay ujeedada safarkoodani la xidhiidho itiraafkii dhawaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu dhawaaqday Israel iyo xoojinta arrimaha xiriirka labada dawladood waa Israel iyo Soomaaliland arrintan booqashada wafdiga Israel ka socda ee wasiirka arrimaha dibadda dalka Israel hogaaminayay ay maanta ku yimaadeen Soomaaliland ayaa baraha bulshada si weyn u haysata walow aanay wax xog ah ka soo bixin ujeedada safarkoodan oo dawladda Soomaaliland laftarkeedu aanay wali ka hadal waxa uu wafdigan Israel ka socda dalka Soomaaliland u yimi iyo arrimaha ay labada dawladood ka wada hadleen daawadayaal qodobada ayaa ugu waaweyn wararkaanu maanta idin hayno halkan naga daawanaysaan waa Kennedy Media anigoo Kennedy baa barnaamijka idin la socodsiinayay sidoo kalena waxaad naga daawan kartaan page-kayga Facebook abwaan Kennedy ay ku qoran tahay fadlan muuqaalka share gare YouTube kana subscribe saar hadii aad hore noola joogteen aad baad ugu mahadsan tahay intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo